maalmo ka hor wuxuu soo saaray مسلسل lagu magacaabo arday kaasoo baraha bulshada qabsaday daawashadiisana baraha bulshada si xooga looga dareemay qaasatan dhankaas iyo youtube-ka sida ognahay axmed faarax waa producer weyn cameraman sidoo kale xirfad leh kana soo shaqeeyay meelo badan una soo shaqeeyay janaalada waaweyn ee ingiriiska sida janaal 4 oo kale oo si weyn caan u ah xirfadiisu wuxuu geeyey afrika qaasatan kenya kadibna wuxuu keenay dalkiisa soomaaliya qaasatan muqdisho keenay wuxuuna bilaabay inuu duubo مسلسل lagu magacaabo arday wuxuuna shaqaalsiiyey ama uu bar shaqo dhalinyaro badan oo Soomaali ah kuwaasoo maanta xirfad fiican ka heleen sida wax loo duubo filmaanta musalsalada waqtiga qaadanayso qalabkii xirfadii maantana dad badan ay ka faa'iideysan doonaan kuna tartami doonaan sida u jil lahaayeen filmaan sida wax u duubi lahaayeen waxa asbuucan u raacsan farxadda musalsalka arday in Netflix ay shaaciyeen filimkii hore uu producerka ka ahay sidoo kale cameramanka ka ahay oo asaga uu sameeyay filimkaas oo lagu magacaabo Anyaale waxaana jiraya actor ah ognahay aan ku daawanay mar hore Captain Phillips dad badan ay yaqaanaan adduunkan ay yaqaanaan si weyn I have two lines. I kill you, Allahu Akbar. Take it up with the production company, eh? سعوديين عالمي أي روان الشباب كوماندينا ورستان لكن رجس هذا المروان هذا توري وجلنا. And action! Do you believe your cause is justified? Hii interview ya GNN ya leader wa Al-Shabaab. Umse tunamjua. Today you will see heaven. Who's the terrorist, huh? Who? actorkaas filimka lagu magacaabo Anyaale ayaa waxaa la soo geli doonaa Netflix waa big news filimkii ugu horeeyay ee Soomaali ay jisho sidoo kale Soomaali ay leedahay ayaa laga soo deey doonaa Netflix 12 May ayaa laga soo deey doonaa Netflix taariikhdaas xasuusnaada hambalyadana waa dhankiina ina u dirtiin Axmed Faarax waxyaabo badan oo qurux badan oo wadankeena ka sameynaya sawirro qurux badan ayuu ka gudbinayaa sidoo kale wuxuu horumarinayaa filmaanta Soomaalida adduunka ayuu la tartansiinayaa sidoo kale in adduunka qaataan filmaanteena inay u sameeyaan translation adduunka dhan yani arkaan Soomaalida quruxda badan sida wax u jiraan waan ognahay Soomaalida dad jiliinka ku fiican waaye xirfad leh aktaryaal ah laakiin waxay u baahnayeen in adduunka la tuso dad badan ku dhiira doono inay Soomaaliya imaadaan wax ku jilaan oo kala duwan haddii noqda ajaanib oo kale sidoo kalena aktaryaasha Soomaaliyeed in la qaato adduunka kale ay ka soo muuqdaan